waxaan idinka mahadnaqayaa marka hore ciddii soo qabanqaabisay xafladdan waxaan u mahadnaqayaa madaxda xisbiga ee gobolka oo runtii sabab u ahaa inaannu xafladdan ka soo qayb galno annagoo hawlo badan u baajinnay sidaannu xafladda uga soo qayb galno waxaan ku qanacsanahay oo aan ku faraxsanahay inaad mudnaydeen inaannu safarkaa soo galno oo idinkala soo qayblo xafladdan anigu waxaan ka mid ahay dadka deegaanka gobolka saaxil waa gobolkii layga doortay berigii dhowada diiwaangelinta markii ugu horraysay aan biyo guru xagga u dhaafay ahayd ee aan tago bariga saaxil waxay indhahaygu soo arkeen waxaanan horu maqal oo u arag waxaan soo ogaaday dhulka Somaliland dhulka ugu horumar yari inuu yahay bariga Somaliland oo aan iskuulo lahayn oo waxba lahayn oo aan dawladnimadu gaadhin dadka qaar baa nagu yidhi dawladda Ingiriiska baa noogu dambeysay bariga Ingiriisku joogay insha Allah xisbiga wadani waxa qorshihiisa ka mid ah in deegaanada Soomaaliland la soo gaarsiiyo deegaanadu way kala horumarsan yihiin marka insha Allah waxa programka ku mid ah siyaasiga ah in deegaanada u dhacay aan horumar ku gaadhin horumarka loo badiyo oo la gaarsiiyo waxaan kaloo ku faraxsanahay berberi waa deegaankaygii waxaad u eg tahay berigii hore oo u ekayd in shacbiga reer Saaxil aad moodo inay katiinada ku xidhxidhnayd markaa waxaa muujiseen inaad katiinadii iska jebiseen katiinadu ma xukuumadda ahayd ma dekedday ahayd ma garanayo laakiin waxaa muujiseen inaad dhammaan katiinadii iska jebiseen oo caawa xortihiin baa muujiseen waxaad muujiseen inaad rayigiinna iyo go'aankiinna idinku leedihiin idinkaa kulmiye ka yimi waddanina soo galay waxaa kaloo muujiseen inaan Somaliland cid u xidhan jirin cid ciisanka uga dalooshaana aanay jirin baa muujiseen caawa anigoo ku hadlaya magaca xisbiga iyo madaxdiisa iyo dhammaan xubnihiisa waxaan si qalbi furan oo gacmo furan idinku soo dhaweynayaa inaad ka mid noqoteen xisbiga wadani waxaan idiin sheegayaa inaan xisbiga wadani la kala lahayn waa loo soo kala horreeyey waxaa laga yaabaa madaxda ila socotaa badankoodu uma badnaa qoladii nala bilowday xisbiga waxay u badan yihiin qolooyinkii nagu soo biiray intii xisbigu jiray waxaanay ka mid yihiin maanta madaxda ugu sarraysa xisbiga taasi waxay muujinaysaa inaan xisbiga la kala lahayn waan idinku soo dhaweynaynaa xisbiga insha Allah xisbigu doorashada uu diyaar garoobay waa xisbiga qura barnaamijkiisa siyaasiga soo bandhigay laakiin wuxuu ka doorbiday waxaanu waliba kalsooni weyn ku qabay inuu doorashada helayo
laakiin wuxuu ka door biday in dalkiisa la badbaadiyo oo shacbigiisa la badbaadiyo oo shacbiga gurmadkiisa laga horraysiiyo qabashada doorashada arrintaa xisbigu meel cad buu iska taagay waxa uu soo jeediyey isaga iyo xisbiga kale mucaaradka ahi inaan doorasho la qaban karin isagoo dalku xaaladdan ku jiro waxa nasiib wanaaga in madaxweynuhuna maanta nagu raacay inaan doorasho aanay suurtagal ahayn 28 March 2017 waxay nagu waajibaa haddaynu nahay reer wadani intii hore u joogtay iyo inta caawa ku soo biirtayba inay mudnaanta koowaad inoo tahay inaynu dadkeenna u gurmanno oo qof waliba wuxuu helayo uu u fidiyo dadka abaartu halakaysa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa cuqaasha iyo salaadiinta iyo haweenka iyo dhallinyarada caawa halkan go'aankoodu yahay inay xoojiyaan oo xooggooda ku daraan oo caqligooda ku daraan oo waayo-aragnimadooda ku daraan oo codkooda ku daraan xisbiga waddani aad iyo aad baa mahadsantihin xisbiga waddani hadafkiisa koowaad waxa weeye in shacbiga reer Somaliland la mideeyo insha Allah bariga iyo galbeedka waynu ka maarmi doonaa bari dhow shacbi midaynu noqon doonaa shacbi isku doorta mabaadi iyo horumar iyo qiimayn baynu noqon doonaa insha Allah waana sida uu dabacsan yahay xisbiga waddani waxaanu doonaynaa inaad nala eegtaan waan rabnaa inaad nala eegtaan barnaamijka siyaasiga ee xisbiga insha Allah waan soo bandhigaynaa dhalinyaro firfircoon baa jirta oo imika qaadatay barnaamijka xisbiga si fiicanna u soo bandhigay waxaan rajaynaynaa dhammaan gobollada inay ka soo bandhigaan waxaan u soo diri doonaa dhammaan xarumaha gobollada si ay barnaamijka xisbiga xooggaal ugu noqotaan waxaan ku soo gunaanadayaa ilaahay abaarta haynaga soo jabiyo ilaahay abaarta haynaga jabiyo ilaahay madar khayr qabo hayna siiyo doorashadiina waynu diyaar garoobaynaa insha Allah markaynu abaarta ka baxno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh